هل للعلا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران. اقرأ ورتل وارق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان. يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كلن كان عاوة waxaan u ballansannahay muxaadaro cinwaankeedu yahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam aad ugu hiilin karto. طبعا waad garanaysaan sababta keentay waqtigan waa xadgudubka iyo aflagaadada iyo meel kaga dhaca nabigeena ku socda salawaatu rabbi wasalaamu calayh waayaan dambe ee caadiysteen sufahada iyo maangaabka iyo waxmagaradka reer galbeedku. taariikhda markii dib loo raaco oo raac lagu sameeyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala rusushiisa iyo nebiyadiisa la caayo la aflagaadeeyo waxaad bilowday ma aha, taariikh dheer bay leedahay. waxaa la dhihi karaa waxay bilaabatay markuu bilowday as-siraac bayna al-xaqi wal-baatil, looltanka iyo lagatanka xaqa iyo baatilka ka dhaxeeya. maalinkii uu bilowday looltankaasi ayaa waxaa bilowday cayda iyo aflagaadada rususha iyo ambiyada loo geysanayay. xaqa oo ay matalayeen rususha iyo nebiyada iyo atbaacdooda, iyo baatilka oo ay matalayeen dadkii iyaga ka soo horjeeday. ambiyada iyo rususha mar walba iyaga wuxuu ahaa mowqifkoodu xujo, daliil iyo burhaan iyo xujo iyo hadal quruxsan iyo inay dadka qanciyaan oo ilaahay fariintiisa iyo risaalada gaadhsiiyaan. dhanka ka soo horjeedana waxaa dabeecad u ahayd inuu caytamo, aflagaadeeyo, ayaga shaqo ka dhigto. bal qur-aanka kariimka akhriya, qasaska iyo qisooyinka markaad akhrido qur-aanku taariikhda uu ka sheekaynayo iyo wixii dhex maray rususha iyo dadkii loo diray iyo aqwaamtoodii, waxaad arkaysaa rusushuna waa miisaamanta, waa hadaf iyo taarget bay leeyihin, oo waxoodu waa xujo iyo burhaan. kuwa ka soo horjeedana warkoodu waa cantaro baqash iyo caywa. marka dabeecaddu saasay iska soo ahayd. bal iskaba dhaafay sida qur-aanka kariimku inoo sheegay, inta cay iyo aflagaada la dhaafay baa ilaahay rusushiisii qaar ka mida la laayay oo la dilay. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo rusushii ilaahay soo diray ugu dambeeyey khatimay, isaga ayaa wuxuu ahaa qaybta ugu badan ayuu kala kulmay dhibaatada dadkii ka soo horjeeday, khaasatan reerkii uu ka dhashay ee quraysheed, gaaladii kale ee carbeed, ummadihii kale. dhibaato aan yarayn oo noocyo badan leh buu nebigu kala kulmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa ka mid ahayd marka dhibaatooyinka uu kala kulmay aflagaadadaasaa ka mid ahay, inay nebiga caayaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, inay ku xadgudbaan. qur-aanku wuxuu inoo sheegay inay nebiga sal alla alay wasalam ku yidhaahdeen waa saaxir falfallow ah, waa saaxir, waa cay. wuxuu inoo sheegay inay yidhaahdeen waa kaahin
kaahinku waa wadaad jinka la shaqaysta waay jimanku saaxiib leeyahay jimanku la shaqaystaayo kuwa wax sheeg waay bal quraanku wuxuu inoo sheegay inay nabigu ku yiraahdeen sallallahu alayhi wasallam waa majnuun waaba waalan yahay ma miyir qabo ilaahay herkaasi gaadhay wuxuu inoo sheegay inay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku aflagaadeeyeen oo yiraahdeen waa kadhaab muftari'a waa beenaale ilaahay ku been abuurana wuxuu inoo sheegay inay nabiga sallallahu alayhi wasallam caayeen oo ku yiraahdeen waa saaxib asaatiir alawwaliin kutiri kutenti iyo beenihii ummadii hore sheekadii uu kutiri kutenta ah uu soo urursaday khuraafaad buu wataa nabiga sallallahu alayhi wasallam si walba ay aflagaado waxay u reebteen ma jirin bal iskaba dhaaf sidoo quraanku inoo sheegay waxay isku dayeen inay dilaan oo khaarijiyaan fi suurati al-anfal Allah waa inoo sheegay tabaaraka wa ta'ala inay quraysh isku dayday inay nabiga dilaan salawaatu rabbi wasallam ka batakhalusaan salawaatu rabbi wasallam marka waxaan u baahanahay oo ujeedadu tahay inaynu ogaano ma aha in rususha iyo kutubta ilaahay iyo alla laftiisa tabaaraka wa ta'ala in la aflagaadeeyo ma aha wax hadda bilowday ma waa taariikh dheer bay leedahay ilaa xaq iyo baatilka looltankoodii soo bilowdayba arintani way jirtay marka wax cusub ma aha rasuulkeena salawaatu rabbi wasallam alayhi rabbigi tabaaraka wa ta'ala wuxuu u sheegay jeeska iyo aflagaadada iyo waxay gaaladu sheegayaan inuu ilaahay ka kaafiyay waxana ayna yeelayeen wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen inna kafaynaka almustahzi'in الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وحلقوا أمري لجهر بالنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بناك ولا بح بالي قرصودي ده كسر وحلقوا أمري بناك ولا بح عديسو لجهر وأعرض عن المشركين كون قالدنا إسقتشيس عيدو دي أفلقادو دي وحشيك قوضة هضنين إن إسقتشيس إنا كفيناك أنك كافيني باليد المستهزئين كو تشيسيا كو عايه كو أفلقادين كو تشيسيا أنك كافيني الذين يجعلون مع الله إلها آخر الله تبارك وتعالى لتشيرن كيس كو العابدو أو كله كو السمين يوم فسوف يعلمون ويؤغان دونان وحا كل عوه وين أغادين ونتيجة دي واتا aynu ogaanayba waxa ku dhacay jabka iyo meeshay ku dambeeyay marka ilaahay tabaaraka wa ta'ala ba kaafiyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi ayat kale fi surati al-baqara ku jirta rabbi waa ka yiri fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'u al-alim ilaahay ba kaaga filan baa ilaahay ba ka kaafiyay wa qad Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu uga kaafiyay siyaabo fara badan waxaad isweydiin kartaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu alayh ila yawmina hada wa ila qiyam as-sa'a inta qiyamadu ka iimaanayso wa a'zamu shakhsiyya arafatu taariikh wa shakhsiyya taariikhda soo martay kii ugu weynaa waa dhinac wal wa sayyidu waladi aadam سؤال بد مركز ويدين كرتا قال حن وبوري قبعة ووسخيسان النجس عيدي سمحي يلي كرتاوه حقيقة قاري كرتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا أمانيا وأمانتي سأتاقن الله تبارك وتعالى سماواتك يرللك لسي مخلوقات كودنا أبوري إسقاسا أماني ملائكة يا أخيارتي يا أضومضة أنتو إلهي يقول شعليه فهد يا هبين أمانتي سي الدعاء سوتاغن سو الله مدين تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا ملائكتي سو
waxay ku salinayaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam idinkii mu'miniinta ahaawna kuna saliya salaamana allah baa nabi maxamed ku salinaya maxaa laga wada sida uu leeyahay abul aliyat ar-riyahi wuxuu leeyahay bimaana mala'a sare korbu ilaahay ku amaanaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amaantiisa ilaahay haya warnin ilaahay amaanayo ya قال صور حنا وصوري هذا الحقيقة كجاري أمانتي سيلها وتاجن الله مركل لجي ما دام ملائكتي بأمانتي سيد دعادي سوتاجن مركل لجي ما دام ملائكته ومدي سي أو مليارات أتوتر بدن بأمانتي سي وحيوتاجن يهين دعاديس دولك كوركي سمتشوه وحنوتش مصو مرين من أجل التاريخ روح مالكي انت صغور أي أمانة يانو أدو عينيان هل بليون كبضا مسلمين تا أدون كوركي ستشوغا وحلي دوا بليون يبروا مليار ونصف كما سوقات نسكاسي شنبقلو مليون كما سوقات إن نتوكنين انت إنو توكتا كما سوقات إن يهين يا هل بليونين توكدان ما أنت إمسا قرب النبي محمد كوساليا يا شنت الصلاة صوشان ما إمسا لبعت حيال يا أفر التحيات كده حنا قدر اللي نصلي بقوله زو وإمس سيدات قر وغيران بمدول بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كوسالينا يا مالك يا هبينك ودعينا يا أمانة حجبوا تاريخ ذا كجيران النوعاس يا مصامر مسجد جيران ما تشرو صوص أسمع تاريخ ذا مصامر سيدا استراد وحوين يقيمة وين أو كفر ديو قال حن أو وسخيسان أو فلاضي معنى وين أو كفر ديو هذا ما تشرو يعني مسألة إلى وزن كذي قدر كذا لا ديو بانت نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه وشخصية ذا السواح الله تبارك وتعالى بوحو سيدو كلام يلا فربضا وقرآن الكريم كامل كوي وحكا الشيء أيو ربي تبارك وتعالى وتشوال سيدا أي مدى تفسير كنت الماما يان نين لديه يجري العاص بن وائل أي النبي صلى الله عليه وسلم مركي ويلشي سردنتين لو يلاشي النبي يقول يرد بيوضنتين أيوه وحويري وروح بها يسكر لي بنا كانوا ضوجوا أحياء وحبك هاري ماي نين أن ركبك هارين أنتوا لمن يا أم بك الله وما جي سنوا لمن يا يسوون لنا حل جالس أودميس الله بأوجه وبتبارك وتعالى وحويري إن شانئك هو الأبتر ميتك كنا عب isaga daba go'an ya isaga khayr iyo wanaag iyo wax walba ka daba go'an wuxuu leeyahay ibn kathir alayhi rahmatullah inna mubghidaka ya muhammad wa mubghid ma ji'ta bihi min al-huda wal haqq wal burhan as-sati' wal nur al-mubin huwa al-abtar al-aqall al-adhall al-munqati' dhikruhu midka liiteen qiimaha lahayn ee xuskiisa sheegidiisu ay go'i doonto iyo wuxuu wato waa isaga saasayna noqotayo كن إيوه دور بقولوا الصلاة اللي جت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مال أمانتي سي حسكي سو أي كبر ضن تاينا تاريخ ده مصومر لأن أتباع دي سامر والبصير بدن يسوسوا ما أنت يقول بدين ما أنت يقول أمان يحس يصلي بدين صلوات ربي وسلام عليه ساس تراد آوي منك مكة وحكي الشيء اللي وضوجوا عيالها يا يقال هذا وائل بن عيسى وحي عاصي وحي لمده أثر كلام صحيحة ويسجل عبد الله بن عباس اللي جورينا يوحوا ليه هاي نينك آيات كوس عطوانيك اللي دي شري كعب بن أشرف السجن أثر كاس السنة الصحيحة بكوي مت بزار باورينا سيد أوليه ابن كثير عليه رحمة الله وقريش بوتجي بركاس النبي صلى الله عليه وسلم يكوي لهذا نينك فلاجة غير كيسي كفلاجوبي بقى نجنا لهم حوا وانين كفي أنا بركاس كعب بن أشرف وحوا يلي إذنك كخير بدن إن شانئك هو الأبتر يسجل كوس عطانا
أيضا آثر عبد الله بن عباس والسنة الصحيحة كوين باجر الله تبارك وتعالى سيدوك القرآن الكريم كاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ضدك الربية الدنيا آخر اللعنات آخرنا عذاب إهاني الدليل وبلنكان إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا كوا الله يا رسول كيس الربية الدنيا آخر وإلهي واللعنضي عذاب إهاني يؤد اللينا إلهي وأدياريه تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى وحينو شيغي إنه أتاقيه النبي الدفاع عيسى صلوات ربي وسلام عليه بعد سورة التحريم باللوغ هذا لقى قور رمي وحاسسك النبي قار كم إذا كساب سنين خاصهان حفصة عائشة حوغا مركي خلطكي قالين لقواني الله تبارك وتعالى هذا الهنشباد وأذك بوجهي آيات ذكر بلاوة إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما ما قدم به وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير ولنت لاستبر يقول فرس وحال إدبين يا دمرك النبي صلى الله عليه وسلم قار كامل وخلط قلي الله وحول وإن تظاهر عليه هذا النبي محمد السقوط تكتان والسوق هشتان تسوق ما طلعان به ما قرب لعان بعد مودين الله وحول تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه إلهي بان ناصر كيس اللي أوه إلينا يا وجبريل نوى وقرب كيس وصالح المؤمنين مؤمنين انت وضف عنا وقرب تاغنيه والملائكة ملائكتنا بعد ذلك انت صورنا كذب ظهير أيضا وهي لنا وفيرس ولنت الاستدوار وفيرس الله جبريل وملائكتي سيقوني اللوغة مقعاب هي مؤمنين انت وضف عن صالحين هي ملائكتي كلو لقد بكيان انت حسن محمد قرب تاغن بالله صلوات ربي وسلام عليه صوميس isaga iyaga u taagan nabi maxamed hiiladiisa salawaatu rabbi wasalaam alayhi nasrigiis marka yaani waxa way rabbigan tabaaraka wa taala waa qadariye nabigeena salawaatu rabbi wasalaam alayhi in la dhibana rabbi tabaaraka wa taala waa dhibsaday asagana difaacay salawaatu tabaaraka wa taala xadiidkii nabiga xadiidul qudsiga fi sahih al-bukhari sidoo kale ta ayu soo galayo allah tabaaraka wa taala uu yiri xadiidul qudsiga man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb wali awliyadayda kamida ruuxi la colaytaba dagaal baan ku iclaamiyay waxaan ogeysiinayaa inaan la dagaalamayo wa a'zamu al-awliya wa afdalu al-awliya ala al-itlaq muhammad sallallahu alayhi wa sallam awliyada ilaahi isaga u weyn asagana madax u ah sallallahu alayhi wa sallam alayhi sidaas daraadeed ninka la dagaalamay ilaahay buu dagaal la galay marka daba xumadiisa meeshuu gali lahaa isaga garanaya نبينا صلوات ربي وسلام عليه انت كذب واحد باتاه او كسو غاريسا اذا بدرده يا افحمده لوغلا كعيو ما جرت قبريgiisu ku jira صلوات ربي وسلام عليه ما ku dhibaatoonaya يا هو حنونا ka gaaray wax dhibaato ka gaaray kala bal waxa dhihi karnaa رسول كان صلوات ربي وسلام عليه عدة أي كهالليان عايان إسقي بما ما بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن السور كيسي يدقن كيسي ما السقي وماشي تاجرنا ما وحي ماشي كوكر قرين يسورينا ما الصورة دي سينا ما قاب كيسينا ما مركز السور بينات انتي سميستان بيقول dagaal beena ku jiraan mooyee maxamed sallallahu alayhi wasallam haba yaraatee meesha kuma jiro wax dhibana kama soo gaadhay u fiirso rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaam alayhi hadda ka hor isagoo nool bay gaaladu caayeen gaalada ayaa caayay saxaabadu ridwaanullaahi alayhim waxay aad u dhibsadeen caayda nabiga iyo caayaysa gaaladu markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam waraanay ma caayayaane nin kale caayayaane
iska dhaaf uu waxba isku dhigina xadiidka fi sahih al-bukhari buu ku yaala min xadiid abi hurayra rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ala ta'jabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'nahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana muhammad niyadan la yaabay nabi sallallahu alayhi wasallam sida ilaahay uu iiga leexinayo ayda quraish iyo lacnadeeda waxay caayayaan nin la yiraahdo mudhammam oo waxay lacnadayaan mudhammam anuguna mudhammam layma dhahe maxamed baa la dhahaa mudhammamku muxuu yahay bimaana magaca nabiga amaan xambaarsan muhammad waa kii la mahdiyay waa amaanayay Soomaa magacaasay markay intay u quuri waayeen amaanta xambaarsan bay magac cagsigiisa opposite abay u isticmaaleen oo ah mudhammam waa ninka la caayay waaninka la caayay markaasay waxay isticmaalayaan iyagoo isaga u jeeda magaca mudhammam ah waxay leeyihiin midalan fa'ala Allahu bimudhammam kada mudhammam ilaahi saa ku sameey ha wa mudhammam kada wa kada mudhammam waa sida iyo sida wariyaad ka hadlaysaan ayagu u jeedaan ya nabiga u jeedaan laakiin nabi maxamed mudhammam baa la dhahaa ilaahi baa carabkoodii leexiyay oo magac kale u leexiyay sidaas daraadeed ninkay caayayaan mudhammam baa la dhahaa nabi maxamedna maxamed baa la dhahaa axmed iyo maxamed baa la dhahaa ilaahi baa halka u duway tanina sidoo kale weeyo sawiradani iyo rusumaadkani iyo karikateerkan la sameeyay nabi maxamed sawirkiisii ma soo saasma sawir kale sameeyeen markaasay magac ku dhajiyeen markaasay asagii la dagaalamayaan طيب محمد واسيدنا هسوركيس ما سيدنا وياك مايا ادوسان وياكين ادير صور بيرود سميستين ان بعد wax la dhacaysaan mooyee nabi maxamed ma baaha sifaadkiisa ma sawirkiisa ma qaabkan uma oolin dhaqankiisa sidan ma ahayn meel cilaabaad marka yaad hardamaysaan meel cilaab garaacaysaan wadi min hikmati Allah tabaaraka wa ta'ala waxa macnaha xoojinaya nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi حديث أبو هريرة كذلك في صحيح البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يا روحي هردئ إيقو أركا وإيقو الرياضة سوچيت بو إيقو أركي دونا ولا يتمثل الشيطان بي الشيطان كوانيك إسو مسو كيسيو صور كيقو كالي شيطان مقادا كرو الإمام البخاري عليه رحمة الله حديث كان مركوري وحكوري ابن سيرين تعليقه وحكك يعني محمد ابن سيرين تابعي إنه يري أي إذا رآه في صورته قرمات نبي محمد إناد كريوتي أو رياضة كأركتي قرمات لديه ومركات سور كيسي أدونك مركو تشوغي أولا هانشري سور كي نينو إيك مركات أركتو أذكر كيسوا فافاسن بوحى كان ابن حجر سند كيسو كان يسقى موصول حماد بن زيد بالجورنا يوحي محمد بن سيرين وحو أهانتر إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن سيرين تابعي فوحو أهانتر هدون نؤيمات أو كويلا نبي جيبان أرك حالي كريون وحو ليجري سفلي الذي رأيته وبالصور كذا ركت يعدات كريوت بل إيه الصفة سويك طيب فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره صفة سن أقون تيرون النبي قال له أقون إن هدوي هذا صاص ويك وحكوا لي ترى أغير كذا ركت النبي محمد ما يا مثلا هاي وادري يوتي قال له يمت وحكوا يمت مد مدو وقابن يا مركز حكومة النبي محمد بانه ريو كويب سواحد بعد صوته صراحة النبي محمد بانه ورمى النبي محمد بانه يا ورنبي محمد بانه صوته بعيده يعني لو حوي ماذا أركن صفات كيسيكو ماذا أركن مرحبا صفات كيسيكو أركننا أما الشيطان باوحو يسوق سوكا كيسي صور كلو إساسية الصور كلمة محمد كما إيمان صلوات ربنا وسلام عليه وحسن يسوق كيسين كلمة محوية هاي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم صفديسي يصور كيسي ما قادن كرو
laakiin intuu qaato sawir kale wuu sheegan karaa wuu dhihi karaa maxamed baa ujeedadan kale maxay isla waxa xoojinaya buu ibn Hajar alayhi rahmatullah xadiid kale uu soo saaray xaakim oo sanadkiisu jayid yahay oo ibn Abbas laga warinayo wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Kulayb ibn Abbas baa uu yimid buuri markaas ay yiri nabigaan arkay sallallahu alayhi wasallam ku riyooday ibn Abbas markaas uu yiri sifuli bal ninka aragtay ii sifee sawaka markaas waxa sheegay buu dhakartu al-Hasan ibn Ali fashabbahtuhu bih Hasan ibn Ali wiilkii nabigu awooga u ah ee gabadhiisa Faadima dhashay oo aad ugu ekaan jiray ninkaas aan sheegay markaas ay buu Hasan buu u ekaan ninkan arkay markaas wuxuu yiri ibn Abbas qad ra'aytahu allahi waad aragtay buu markaas سمعت على لا هي وتكريوت النبي صلى الله عليه وسلم maxaan ula jeednaa xadiidka iyo aahaarta maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa sawirka meesha yaalay haduusan kii nabi maxamed iyo sifaadkiisii lahayn ma nabi maxamed ba haya ma aha gaalada marka balaayo kale sawirteene nin bambooyin madaxa ugu xidhan yihiin oo balaayo oo bidaar leh oo khariban oo asaga naba aad moodayso muxuu ahay warnigaas nabi maxamed ma aha sooma nabi maxamed ma aha balaayo kala sawirateen xaqiiqadu marka waxay tahay in la fahmo u baahan wax weey sidii gaaladii waqtigii nabiga joogtayba magiciisa ilaahay uga leexiyo mudammam ugu leexiyay ba kuwan maanta joogana xaqiiqadii sifaadkiisa inta looga leexiyay ba waxa loo leexiyay sawirro kale oo been ah markaasay nabi maxamed ka dhigayaan salawaatu rabbi wa salaam alayhi saas taraadeed nabi maxamed ma aha salawaatu rabbi wa salaam alayhi la sifaadkiisa wala suuradiisa toona ma aha taasi waa qodobka xiga nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi xadgudubka lagu sameeyo intuu noolaa wixii dhibaatay soo gaadhay markuu dhintay kadib xadgudubka lagu sameeyo darajaadkiisa aakhiray kor u qaadaysa iyagu soo nabi maxamed dhiba isma la oo dhibaato u geystay soo isma la asaga kowde salawaatu rabbi wa salaam alayhi saxaabadiisii culimadii ducaadii dadkii ilaahay diintiisa u soo adeegay shuhadadii dadka diinta ilaahay u adeegay ilaahay dartii loo dhibayo intay nool yihiin dhibaatada loo geysanayana darajaadkooda kor u qaadaysa aakhiro iyo manziladooda hadday dhinteen wixii dhibay loo geystay aflagaadii xadgudubana darajaadkooda aakhiro iyo miisaankooda aakhiro galaysa sidaas daraadeed ilaahay shar ma wada abuurine nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi dhibaatana kuma gaadhayso kuma xanuunsanaya qabriga wax dhibana ku gaadhi maayo dhanka kalena ilaahay darajaad sare ayuu ku gaarsiinaya oo ku siinaya xadgudubkan oo khayraadkiisii faraha badnaa bay galaysaa salawaatu rabbi wa salaam alayhi laana maxaa loo dhibayaa ilaahay dartii baa loo dhibayaa soo saas ma fa innahum la yukadibunaka walakin adh-dhalimin bayati la yajhadun xaqi uu la yimid baa keentay in lagu xadgudbo ilaahay dartii baa loo dhibayaa sidaas daraadeed dankaasina oo wuxuu ku imaanayaa nabigeena xadiidkii salawaatu rabbi wa salaam alayhi uu lahaa ruuxa muslimka ah dhibaata ma gaadho nasab hammi murug dhaawac hatta qodaxda mudaysaay dambi dhaaf ay u tahay darajana kor baa loogu qaadaya taasina ayadoo aad u khadhaadh oo aad aan u dhibsanayna nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi hatta magaciisa in la soo qaado xumaan lagu soo qaado oo qalbiga ruuxa muslimka marna uusan ayna ku fududayn haddana maca dalika nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi wax dhiba gaadhi maayo taa macnaheedu ma aha xadgudubka la isku dayayo gaala isku dayayso ha laga aamuso faraha laga qaado maaha macnaha lagama wado bal waa in la isu taago wixii laga qaban kara in laga qabto waa oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi xilligiisa ayaa gaalo soo cayday soo aflagaadaysay u soo gabayday iyo raggii saxaabadiisa ahaayee aftahanka ahaayee gabi jiray yiri difaaca u jawaaba waa in la difaaco xadiiثu Aisha radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri uhju qurayshan fa innahu ashaddu 'alayha min rashqin bin nabl quraysh wax ka sheega hajwiga wax la yiraahdaa in ruuxa la duro
خاصة أبترك إيا النصبك روحا إيا أبتركيسي أو يدي إيا مركي ضردو أي قشو بهجوي قال لي هذا مركا قريش ويررب رسولك صلى الله عليه وسلم ما حيا لي وحي كقدريه إن لو حلقة الشيء وحمان تدي يعني نقل حمادة دي حلقة لقى قلوه وأفكر الله لبحه وحي أقدر أنت هاي إن لبب إيبوين لقو حرقيو هو كتاسا أقدر مركز النبي صلى الله عليه وسلم سي أرنت اللوفولي وحوية الرقب يولا هانشر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يقول قال لما والسوقان تاضقوا في عن وحوية رنيك اللي يجري عبد الله بن رواحة مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهجوهم لما قال وير أفكك وير وقريش فهجاهم فلم يرضي ودري انت تبرتي سوا قبي وجوابي لكن قبي جيسي نبي مرة اللي قالني صلى الله عليه وسلم واسلوقي ماشي الربي ما قارن مركزوا هذا لو وعد دري نيك اللي يجري كعب بن مالك سينا قبياقها والبل كعب ويرا لي والبعضون كعب وانت هذا طور بالي كعبنا انت سيبو دكسي النبي صلى الله عليه وسلم واكو قنعوها كذب وحو دري النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان الله يربو كأنصاري حسان مركو صوق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أيها حسان وحيري قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم باللسان فري الأديب حسان مركو صوق عليه فوحيري هذا أيها وقت جدي لقاري إن أعد درتان وأرنتان أحل صارتان لباحا صينت وراري سكوت لباحا صينت وراري هيب كذبنا عرب كيسو صوص هاري مركان عربك بلانك انتو صادقي أيوب عرب كينو دقاقاتي بالله بس سينتي لباحك لباح مركو عرنا يو حناقصين صو صينت ساكا بسيط أو عرب عرنا يا مرك ودون هي مال إنه وصل عرب كوساك ديا مركزوا يدي على لا وقت جدي وي نكى لا دير لهنا وأنا قبل مركز أقول يدي إلهي حق قصة صاربا كبرت النبي محمد ولا إن كتشح تشح يقول كوجو جوين قريش عرب كيجا سيدا حرق الله تشح تشح لو جو يوكله عرب كانوا لتجي مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعجل والحسن وهدقدين ركاي فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي لمن كان قريش يعني وحويا حسان وعربك أولبحها يا أم نفسنا يو لمن كان نبي كذا شيء صلى الله عليه وسلم صوما نصب كودي هدي وحلقش يا جنا ده النبي جوا اسمه نصب يجوا مركب ولي وبلوك هذي ماشي خطر باكو شرتيه هو اللي كفير صدق وبحنتها بالعكس دي مركز النبي صلى الله عليه وسلم شهادي وحو كيري بل واحد u tagtaan ninka la yiraahdo Abu Bakar wuxuu ahaan jiray yani nasabatul arab arabta ninka ugu yaqaana nasabiyadeedu ah qabaa'isho dhan yaa dhalay reerkee dhalay dhanka hooyo dhanka aabe buu si fiican u yaqaan markaas uu yiraahdo Abu Bakar u tago la tasho nasabka aniga imara si uu gooni kuugu saaro inta kale marka aad arabka ula dhacdo aniga hayga saaro meelan anigu maro oo dhan ha ka leexiyo ilaan xasan waa reer Madiina Sooma Abu Bakar baa reer Makka oo Quraysh kala yaqaan nabigu tiibuu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaam alayhi kadib uu tagayo Abu Bakar buu tagay Xasan markaas wuxuu ku yiri Abu Bakar baa marka uu kala tilmaamay wuxuu u kala sheegay reer Bani Hashim reer Bani Abdul Munaf ilaan aabihi isku meel bay maraan moogta aabaha dilay hal taabto waa isku wada aabe Sooma Bani Hashim Abdul Muttalib Bani Hashim Bani Munaf odayaasha hadii la taabto nabigiina waa la taabto Sooma sida gabaygiisu tilmaamay Xasan xagga hooyooyinku ka galay marka Sooma ilaan hooyooyinka lagu kala tagi Sooma hooyooyin nabiga maro oo dhan intii isaga isku hooyada ahaayeen
oo dhan wuu ka leexday intii kale ka hooyada ahaa buu dhankii hooyooyinka ka galay markaasuu carabka la dhacay si fiican uga noolaa sidaasaa marka nebigu sal lay waslam intuu wuxuu ku yidhi waladii bacataka bilxaqi la asullannaka minhum kama tusallu ashacratu min alcajiin ilaahayga xaq kugu soo diraan ku dhaartaye adiga waan kaa dhex siibi buu yidhi sida xabadda tinta ah looga dhex siibo cajiinka qooshka Soomaaliya burka qooshkiisa marka la qoosho xabad tin oo ku dhex jirta sida looga dhex bixiyo kale adiga iyo nasabkaaga intaad marto saasaan kaaga dhex siibi buu adoon waxba ku gaarin baan banaanka ku dhigi sidii uu sameeyay ficlan wuu ka dhex siibay markaad gabaygiisa fiiriso muslim iyo qeyrkii baa keenay iyo kutubta siyarkuna way keeneen dhanka hooyooyinku ka galay meel nabigu maraba cagta ma saarin zaanada tilmaamay Aisha waxay tiri radiyallahu ta'ala anha rasuulkan maqlay buu sayyidi sallallahu alayhi wasallam oo xasaan kule inna ruuha al-qudus la yazalu yu'ayyiduka malakul jibril kama zuulayo inuu ku taageerayo ku garab taagay hawshan iyada ma nafahta 'anillahi wa rasuulihi inta aad ilaahay iyo rasuulkiisa difaacayso malakul jibril baa ku garab taagan buu nabi sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri hadana rasuulkan maqlay sallallahu alayhi wasallam oo yire waa markuu xasaan hawshiisii dhameystay oo gabaygii tiriyay oo madaafiicdii tuuray kadib ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka arintii ka hadlay wuxuu yiri hajaahum hasan fashafa washtafa bu nabigu sallallahu alayhi wasallam alalay hasan hawshi waa qabtay ya fashafa muslimiintiina waa caafiyay hada lagu qanco oo lagu fayoobaadu bixiyay washtafa asaguna waa ciil baxay isagina waa ciil baxo waa noolaaday muslimiintiina wuxuu ka saaray culays badan oo haystay buu ka saaray sidaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku amaanay xasan marka gabaygiisu waa dheer yahay oo qaar kamida waxa keenay sahih muslimku ku yaala xadiidkan siyaaqadan dheer hadda waxa ku wariyay muslim baa ku wariyay fi sahihihi hada marka shicir badan oo bahrul waafirka abu keenay oo ka bilaabanaya hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhaka aljazaa'u hajawta muhammadan barran hanifa رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء هل كاسو قبي كقلي قبي دير وقبي كيسي قيب كم ذا قابك ونبيك وقد حساري نسب كيسة وكوي كلا أورا قريش قبايش دي كلماله كلا يكوكلا كتسناينا أيضا أبيات كلا كتميد وقتك أنا قد حدينا هذا وفسرنا مقصود كان كرعان أنت كدي وحن كوضنا معناها النبي قد يباتم قاري صلوات ربي وسلام عليه ربي جيبنا الدفاع يا معناها يضماها حد قدو كل لقصة ما ينهى لقى عامسماه وين لقيت شواب وين لقيت شوابه تاصل جدد لنا قلب كلو إن تلمان أوبها بوحيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدرده يفلقات ضد الغلك عيو لين حكى لمركات كفيرس مراها كدلنا يا مركات فيرس سيدي قالوا قوتان iyo ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu ka dhalinayo markaad fiiriso marar fara badan waxay noqonaysaa rubba darratin nafi'a marar badan waxa jira wax dib u muuqda laakiin ilaahay uu masaalix fara badan ka keeno oo miro fiican oo aad u fara badan ka dhaliyo hadaynu taariikhda dib u raacno dhacdooyin waaweyn oo waxaynu helaynaa muslimiinta culays badan ku ahaa oo ilaahay tabaaraka wa taala uu ka keenay faa'iidooyin iyo midho aan marnaba la fili karin waxa kamid ah midna hadaan tusaale u soo qaadano been abuuradkii nabiga lagu sameeyay gurigiisa salawaatu rabbi wasallam alayhi soo garamaysaan hadithatul ifki oo nabiga reerkiisa iyo qoyskiisa lagu been abuurtay oo la isku day in la wasakheeyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam bil ku dhawaad taqriiban guriga nabiga sallallahu alayhi wasallam qasna oo nabigu la warbahaarsanayo la rafaaday salawaatu rabbi wasallam alayhi dhacdada noocaas ee dhowr iyo 10 aayadood oo quraanka kamid ah suuratu nuur ilaahay kaga hadlay soo dhacda murug lama soo arrin xanuun lama ahayn xaasaskii nabiga mid ugu jeclay Aisha in la yiraahdo muxuu ahay zina iyo xumaan bay samaysay ya ninka reerkiisa hadii la xumaan bay samaysay isaga ceeb kuma dhacdada markuu ilaahay ka hadlay muxuu yiri la tahsabuhu شرا لكم بل هو خير لكم
يا شر إني إذين تهو ملاينين خير بيدين تهي ورمني محمد وقرقي سيلا قال سي خير كويا مني محمد أنت أصل الرفادي سي خير كويا بل هو خير لكم دان كيوي مراها كتا الشيء مركا الله فيريو مصلحة وين باك دلت بل هو خير لكم دور إيه طبعا آيضوضو إلى ما أنت أنا آخرين إنا بعضها كويمت ما يربع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بتضرب الصوكر كودا لجسوا بريالي وإلى ما أنت أنا آخرين إنا براءة دي أنا آخرين إنا سيداس درادة مصلحة كدلتي منافق دفر بدن بصابح يو إسقريني مصلحة كدلتي مرك الله فيريو لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وبعضه درس أينو كقادرين وحكم إذا مثلا صحابة رضوان الله عليهم مقالة دي يكون شأن مكة وكوة تشوقي واي وكوة الله دبي وكوة الله لاي وكوة الله عدادي يا وكوة محوهي نوع والبدباتوين لوجو جست وكوة دول كي مركي تشوقي واي كه جرودي وكقحي وأرض الحبشة أقحي عليس وين بيأهي بعد عليس لبيأهي dhibaatooyin baa muslimiinta gaaray jid bay galeen dhul qurbaa bay tageen ayna waxba ka aqoon rafaadkaas oo dhan markay mareen dib baa loo arkay laakiin maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay hijradii saxaabada in wadan dhan ninkii madaxda ka ahaa uu soo islaamo sooma bal huwa khayrun lakum dhacdo kale oo sidoo kale nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi magaalada Makka lagu dhibay muddo dheer buu sabrayay adkaysanayay waa la dhibay dilkiisa la isku dayay waa hijrooday magaaladiisii dhulka ugu jeclaa oo ku dhashay tolkii buu ka dhaxbay magaalada Madiina aad dhibaato culus bay haddana maca dalika Madiina markuu tagay nabigu sallallahu alayhi wasallam hijradii nabiga iyo dhibaatadii Makka loogu geystay maxaa ka dhalatay dawladii Madiina ka dhalatay awoodii Madiina ka soo baxda ka dhalatay diintan iyo dhulkay gaadhay oo dhan baa ka dhashay waxa loo arkay waxoogaa inay dhib tahay laakiin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala midhaha ka dhalay waxa kamida maalan heshiiskii Xudaybiya nabigu galay sallallahu alayhi wasallam 10 sano xabad joojin ninkii xagga naga ka yimaada soo celilmaysaan ninkii idinka soo islaama waa idin soo celinaynaa saxaabada culays badan إلى عليسك وحو قال هشيس كاسي سيد درين كي كقادين عمر واكا إسهين واي أي رسولك إلهي ألسنا على الحق وعدونا على الباطل رسولك إلهي سو حق كما سوقنين وعدوك أنه سو باطل كما سوقنا محان دوليك أو قادنين أنا ما كيسك علينا محان هشيس كان دوليك أو قالينا وكي نبي أوتك أو بكر أوتك عليسك إلهي دو حد كقرنيسا صحابة رضوان الله عليهم مركي هشيس كي دعاي والنبي صلى الله عليه وسلم وإنه نقولنا حولها دودين جورع أمر كيس واحد قاطع وكيله واحد صوصامي خلاص يضع عادي أين هانشرين النبي محمد أمر بحيي إن لو كلا دقدقي وايو ما دعشر إن لو كلا دقدقي وما دعشر لكن واحد دقات شيء على واحد عليس كي أرنتوا لهيد بعد قرن بعد ذي نوع مسلمين عليس كوهيسي محو هاي سيدا أيو أركهيين درين كقادين معاك هذا الشيء يا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحي وين بيهت إلهي بمصبح هذا كتير تأركهي لكن إيجا أمينا مقنن وحكت على تي لوسنا جدهود مسلمين تو إني تبانقر إسلام اللابان كبدا دينتي في الضه قري والبقشة رجي مكة فرتي ومركز ضم بمكة قفصل دوناي إن بدروا كم إذا مدرا أيضا بدين تسوق له سيدا صراد لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم دنك مركز دينع كأخرده وحكوا صباح يا رب جين تبارك وتعالى مركو واحد ديارنا يو هذيك دنك كتاجنت هاي مويه دينع يكلوا فربضان بيأرنتوا له أكيد شاعر كلها أما جويا كلها إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود يعني هذه إلهي فضيلة يوناقا إنو فافيه هدو إلهي الرمو فضيلة يوناقا سو قرصومي
الله تبارك وتعالى وحوبه أدرى مد حاسد عرب كيس الله أدرى مد حاسد وكوك عصنا وكون نعب باب اللو أدي شياب فضيلة دي قرصونة دي سقع بفافين سقوا حمام وإسليه لكن وحوي ورجع سوحيري ضبك هرك ضبك هوريتان كضبك هدو سنشير لهن وجوبيو أما كهر هيو وحكستو للدرس أو كأجدواد هدون تشيري لهين عودك وتقون كيس الله ما ضريمين هذان ضب تشيري لهين صوما عودك مركو هالكيان يا ما وذي يقوله ماشي أسكيان إنما سوق قاري لكن مركو الدحوش اللي قلت تشيو يا سومهلين مركو قبتاله هلا معناه وحكوضا مرر فربضا إلهي تبارك وتعالى فضيلة يا وناقي أديك وحو أديك سدا الله ضد خير لا ويالا وكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلهي تبارك وتعالى مرر بدن دين توحكوه حوتشيا يا روح عن آخر عن كل هين روح فاجرة وان آخر روح كل هين إلهي بقى الدون كان معمولة يا سيبوا وحود ديارنا يا من عملات سلادة ميلاد سلادة وراديك أما دباتك كتم هذا إلهي تبارك وتعالى خير ككينيا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي أرميه سيساق غالبوه سيدا استرادت إيجابيات فربضان باكس كإيمان كريا وحيالا فربضانه صح لعضده النبي صلى الله عليه وسلم لو لقست أفلقاته وارين حنون لي وارين اللود القادم كريم وإن قلبك الروح مسلم وكبنا حتى فاجر يفاسقها هذا وأرى المسلمين تبان أي كم بديسينهم حتى فاجر كيس فاسق كوضح مت كوضا وناكسن وكم بديسين لكن هذا مع ذلك جوانب تاء دروس تاسي أنكها الله إنه أي مهمة إنه ملاحظين مثلا هذا ضو في الصنة صنده يمددي أفلقاددني يوحن السعودين هذا في الصنة من بدن واحد شراء دريمي كرم وحكم إذا مثلا أيوه واحد إصلاحيين النبي صلى الله عليه وسلم ضدك قدرة قدرة ضودي واحد كرر الشيء إلا سيج على طبعا إني ضدك الرميسنا إن بدن كلبا أي محبة سيادية تعين أسي قادم dhankay iyagu u wadeen dhinac kale u foofta dhankii dhinac aan ahayn bay u foofta waxa kamid ah faa'iidooyinka ka soo baxay in badan oo muslimiinta kamid ah markay arkaan gaalada xadgudubkay diintooda iyo nabigooda iyo muqaddasaadkooda ku sameeyaan qaar badan oo kamid ah waxay ka heleen darsi ah inay diintooda ku dhagaan oo u laabtaan ruuxa tan la yeelayso nabigaaga iyo diintaadii ma isweydiye adigu xageed ka joogtaa in badan inay marka soo noqdaan oo diintii u soo noqdaan oo wax fahmaan oo bay keentay waxa kamid ah midalan in badan oo dacwada islaamka kamid ah inay si aan toos ahayn ba ay dadka ku gaadho aflagaadooyinkan waxa dhacaya midalan dad fara badan oo nabi maxamed ba aan aqoonin kama warhayn maqlinba با إعلامك وحي كم قليان سويران لقى السمية والعاي مسلمين تبا ككعي لباتوين با كدعي وربي مقليان ولقي وحلقة يقوم في تاريخي إنه صن إسلامنا مقلين نبي محمدنا مقلين صلوات ربي والسلام عليه مالك أسوح بالله بيا إنه الرادي محمد يالله محول لي بارس بوكليا أخرين بوكليا markaasuu laga yaabo inay sabab u noqoto inuu soo islaamo ya ficlan way dhacday marka dadka soo islaamaya aad siyirkooda iyo qaabkay ku soo islaameen aad akhrido qaar badan oo kamida islaamkii iyo nabigiisii baa wuxuu gaaray markii hore asagoo la suuro xumeeyay buu gaaray tiba waxay ku bixisay inay baari sameeyaan tiba sabab u noqotay inay soo islaamaan وجوانب أبيرادينه كم إذا إلهي تبارك وتعالى سيابه وحقر لنا وحكم مثلا إلى مدة أي بلاوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفلقاديه لوحد قدبه وحب اللوضي حملة يقولوا آذو بلارا وعالم الإسلامي كب اللوضي والنبي صلى الله عليه وسلم ضدك اللقو برايو عدي أنا قونين لبرايا نبي محمد يوأها تاسو كتابا لقى قري
intaasoo qanawaad oo maxaa telefishin loo hagaajiyay intaasoo milyan oo xoolaha baa loo sameeyay intaasoo hay-adood baa loo sameeyay hay-ad caalami ah oo muslimiintu leeyihiin مثلا هي وين عالمي اللي يراهدو اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء وهي عالمية وين وحكم إذا مثلا الهيئة العالمية للتعريف بالرسول ونصرته هيئات وين بصمس هيئات كاسي وحي انت بدل الله خطابا يعني او وركودو كو وجهان هي ريغلبيدكا يا شعوب تودا عبر يعني يغو مريا ميديا وسائل الاعلام براها يعني waxay dadweynuhu isugu yimaado internetka website-yada yani facebooka youtube-ka muxuu ahaay telefishinada reer Yurub iyo dadkii Nabi Maxamed aqoon Nabi Maxamed la baro salawaatu rabbi sallallahu oo juhdi weyn la geliyo oo tijaarta xoolo badan ku bixiyaan oo hay'adka maanta ugu dhaqaale badan ay kamid tahay hay'adka barnaamijka ka shaqeeya xagee ka dhalatay waxay ka dhalatay yani wax weeyaan وأرين رد فعل كي مدوي حد جذب كنبي جينا لوجو سمينا صلوات الله وسلام عليه وعين تصور كم إذا ويدنا رنتي أهمية ده له إن بدنا مسلمين تكم إذا أيها وحي لوجو كذي ولوجو خلدي وحلي إلى هذا بنت قال ذي رجال بيتك وحلي إلى هذا عدالة تسامح هل احترامه هل قدريه وركاس هذا بدنا مسلمين تكم إذا دقوه هذا لوجو شوي markaasay ka soobeen siraaca iyo xaqiiqada jirtaba ka qarsoontay hadda markay bilaabatay marka wax walba daaha ka furmay oo daahi ka qaadmay xaqiiqadii banaanka wala soo baxday cadaawadu soo baxday xadgudubku soo baxay diinteeni islaamkii nabigii muqaddasaadkii waxba loo rabeeyay soo baxday markii leeyahay war ka daaya xorriyatu ra'yi waa war ka daaya dimuqraadiya waa ya xaqu saxaafa waa muslimiintii waxay ku baraarugeen aleelahay waxan la leeyahay hal isla noolaado iyo hal isdhex galo ya ay hal wada dhaqmo iyo xuquuqda iyo wax laga hadlay inaga leeyna sirahay wariyaa dabin baa leeynoo dhigay qaar badan oo kamida sabab ay ugu noqotay inay lucbada iyo ciyaarta si fiican u fahmaan ila dadka qaar waxa jira moogtay qalin waaweyn far waaweyn ilaa wax loogu qoro wax ma fahmaan صباح إلى أي بعش وستي سكب اللعبة وأحمد فهم قارب المركز قضايا وحي درينسيني أما أي كو أبورتي حقيقة إني تهي عيارته إني كوين تهي هذا اللذن يا وحن بينت الاسكوس الصبا يا رنت واقع رسته معي أنا نيجي هدان مقدسات كي قال إلى لينين والنبي قال له واحد قد بهاي مركز له واحد قد له حرية ودين تيد له واحد قد له حرية والضمير كي يقول له واحد قبل الواحد حرية هذا يرتبط ربنا نوراشات كان لازم معته هل السمع ما كان هل السعبيات كان لازم معته يعني وشيء وفضل الروح يسوي الدين كريوم مسألة لازم مركا رنتي وحي كنتي لقيا دعوته لقيا بالله ما تنسى هذه شرتين يسن كنتين يعني واحد بدن بقى إلهي كده لي تبارك وتعالى حكمة ربي تبارك وتعالى وحي كنتي سيدو كله oo ina fahansiisay wax la yiraahdo hadda saan tilmaameynay isdiwaajiyatul macaadiir lada algharb reer galbeedka iyo macaayirtooda mawaasiintoodu inay tahay mawaasiin aan sax ahayn oo ku salaysan la jiifiyana muxuu ahaay la jiifiyana banaan la jiifiyay banaan la joojiyana banaan reer galbeedkani waxay dadka ka iibinayaan inaynan ahayn حقيقة قيم رسمية إن يصلحين بالكتوس مثال بنسوق هذا ومت كستا وعالم ككمل وحيلا ده هي وحيلا مقدس وقال لوك عن دافين حيلا مقدس للتابن كريم دستور هالنقطة شخصيات تاريخية هالنقطة دين إيه عقيدة هالنقطة ومت ولي بوحيلا ده هي ليميت واحد شراء عد قلي كرتاين يجر سقف أن لا تابن كريم بموضوع الضلال طيب قانون كاسي لك يؤيا لا قانون كاسي وحيؤيا لا مركي قضية خصيصة مسلمين تعيدان هاي لكن مركي قضية مسلمين تخصيصة إلى ماشا قدام بيسا وحبل له الربي ماي المثال بان نسينه
marka hadda la yiraahdo madaxda reer galbeedka iyo muthaqafiintooda iyo aqoon-yahankoodii markii la yiraahdo war hal bilyan iyo nis muslimiin aba damiirkooda dhaawacaysan ya dhaawac u geysanaysan waxay ku jawaabeen taqaanaa adeer waxa weeye xurriyatu ta'biir xurriyatu ra'yi xuquuqda makfuulka waxa kamida dimuqraadiyaduna keenayso in ra'yiga xor loo yahay khaasatan saxaafadu jariidadu waxay qorayso telefishinka wax laga sheegay idaacada wala dadku waa xor annaguna ma control karno طيب hal su'aal baad isweydiin kartaa waxa la yiraahdo lagu magacaabo maxraqada yahuuda lagu magacaabo ama holocaust la yiraahdo holocaust oo Hitler iyo Naziyiintii ay sameeyeen oo yahuudu intay bomboonayay ka faa'iiday xadadka asalahan uu jiraa laakiin waa la bombooniyay waa laga faa'iideystay nimankana reer galbeedka ku sanduleystay waa dhacday oo taariikhi ah diinna ma aha aqeedana ma aha waa dhacdo taariikhi ah dhacdada taariikhiga holocaust ama maxraqadii reer galbeedka madaxdooda iclaamkooda telefishinadooda suugaantooda jaraa'idkooda arha ka hadla waa xor adeer xor baan ra'yigana xorna ka hadlo wakaas waba ka hadli karaan kuwii ka hadlayna inta maxkamada lala fuulay baa waxa lagu yiri mucaadatu saamiya waxa la wadaan saamiyadaad culati meelay galaan bay waayeen waree galbeed oo adeer naga daayay la jiifiyaana banaan la joojiyana banaan nabi maxamed in la caayana waa xurriyatu ra'yi diinta islaamka in meel laga dhacana waa xurriyatu ra'yi hal bilyan iyo nus muslimiinta kamidana in qulubtooda la dhaawaciyo damiirkooda waa xurriyatu ra'yi holocaust inaan taabanana ma waa mucaadatu saamiya adeer bal iswaa fajiya maqaayista reer galbeedku adduunka ay kula dhaqmayaan gaaysaga waxaana ilaahay mahadi ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee sanadahan dambe la gaaray waxa kamida qiyamkii ay ku faani jireen reer galbeedku inay iyagu dumiyeen qiyam xuquuq sinaan cadaalad wixii ay ku faani jireen bay maalinba mid ka taqalusayaan markaas maanta heer wadninku wuxuu gaaray xaqiiqadiisu ay tahay waa la kala xoog badan yahay mooyee adeer hadda la isa siri maayo reebale qiimo buu leeyahay dimuqraadiya jirta xuquuq baa jirta dadka cadaalad baa jirta warkaasi waa hore la isdhihi jiray laakiin hadda kaarkiisa waa gudbay kaarkaasi waa hore la xoqay waa xoqmay kaasi dib dambe u socon maayo marka xurriyatu ta'biirna ma aha xuquuqna ma aha dimuqraadiya haday macnaheedu tahay in muqaddasaadka lagu xadgudbana ninka muslimka dimuqraadiya ka hadlaya ceeb ku tahay dimuqraadiya haday tahay in maxamed la caayo oo islaamka la caayo oo muqaddasaadka lagu xadgudbo fabiisati dimuqraadiya ceebteedii waxay ka mid tahay iyo qashinimadeeday ka mid tahay alkayl bi mikyaalayn baa la yiraahdaa waxyaalaha noocaas oo kala markay ku isku qarinayaan arinta iyada ah waxyaalaha faydmay bay ka mid tahay iyo duruusta muhiimka ee muslimiintu inay fahmaan u baahan qiyamka saxda ah waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu la yimid darsi gooniya ka dhig doona laakiin hadda soo kuma laguma eedeynaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo dacaayadan iyo aflagaadadan kuma socoto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam naxariis laa uu ahaa sooba waxbuu burburin jiray waxbuu kharib jiray soo kuma socoto taariikhda marka dib raacdo iska dhaafs ummadiisa iyo inta atbaacdiisa cadawgiisa nabi maxamed ula dhaqmi jiray sallallahu alayhi wasallam suwar iyo amthila waxaan helaynaa hayya oo reer galbeed iyo qeyrkood toona taariikhdoodana aan soo marina doonin waana darsi si gooniya aan u taaban doono insha Allah ta'ala habeenada soo socda samaahatu muhammad sallallahu rabbi wa sallam alayhi ma'a a'daa'ihi saamixidii qaabkii dhaqan wanaagii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam cadawgiisa uu la dhaqmi jiray
ودروس gooni aanu bixin doono oo aan ka hadli doono maxaadar gooni ka aqidi doono biidilaahi tabaaraka wa taala iska dhaaf ayaga hatta taariikhdoodii horeyna gaari kareenin rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam asaas daraadeed qiyam iyo wanaag iyo cadaalad iyo xuquuq iyo xurriyad waatii nabi maxamed la yimid waata quraanku tilmaamayo nabiga xadiistu tilmaamayso ummadana ay ku soo dhaqmaysay muddo dheer laakiin taree galbeedku waa muzayyaf wa falsawa fake waa waxba kama jiro tajriba yar markay gashay fashilmaysa tajriba yar imtixaan yar markay marto ayadana waa kala daadanaysa laana wax la dhoodhoobay barka hore baa arintaasi waxay tilmaamaysaa oo siraacaasi uu tilmaamaya ama yaani wax way muujiyay sidoo kale xiqdiga iyo cadaawadda islaamka iyo dadkiisa loo hayo oo nabigiisa loo hayo waana ka rabbi tabaaraka wa taala quraanka kariimka uu ku tilmaamay qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar cadaawadday qabaani afkooday ka muuqatay waxay qalbigoodu qarsanayaase ka weyn oo inta qalbiga ku jirta ka weyn xumaan mooyee marka samaan ka fiilimaysid way macna su'aasha isweydiintana waxay tahay marka maxay tahay waxa ku bixinaya inay islaamka caayaan oo nabigiisa caayaan aflagaadeeyaan inay isku dayaan maxay tahay dawaaficda keenaysa iyo asbaabta keenaysa هذا كده haddaba maxay tahay asbaabta ka dambaysa ama waxa ka dambeeya ee riixaya inay soo noqnoqoto oo shaqo ka dhigtaan maangaabka reer galbeedka iyo wixii la midka ah in ay nabiga ama diinta islaamka inay caayaan aflagaadeeyaan karkateer iyo sawir xun ka sameeyaan maxay tahay asbaabta ku kalifaysa daafica ku riixaya muxuu yahay waxaan dhihi karnaa dhowr arrimood baa arrinta iyada ah sababaya ta koobaad weeye wax weeye alkhawf min alislaam وانتشاره في العالم الذي يهدد المصالح الغربية الظالمة لمجتمعاتها وشعوبها عبسي waxaa ku jirta nimankan oo soo kordhaysa faafitaanka islaamka ay ka cabsanayaan waa diin si walba hadii loo dacaayiday oo si walba loola dagaalamay oo military ahaan iyo ciidan lagu la dagaalamay oo dhaqaale lagu la dagaalamay oo dadkeedii iyo dalkoodii la burburiyay haddana waa diinta adduunka ugu faafid badan waa qaladu ka war diintii faafideedii way marka xakamayn la'ay meel kale iska dhaaf afrika iska daa wadamada asalku waa iyada iska badaa afrikadan la isku haysto iska dhaaf yurub dhexdeeda waa diinta ugu faafid badan waa cabsi marka waxay qabaan diintani qaabkay u faafaysay u socoto 30 sano 20 sano soo socota yurub waxay isu bedeli doontaa aqlabiye fara badan oo muslimiin inay soo baxdo يعني ترى أدو بدن يصبح عبسيداسي مركا هلاقو هرتاقات تمت سير لوغو هرتاقية وإن ضدك إيا الله يسكدر دين إسلامك إنت بدن وتشددوا وحويان شعوب تينا إسلامك أنك حكمينه دين تبي قلياني أنك عشن سين وقع عشنا وإنا ورباهين تأو استعماله يميديها إن إسلام كلا الصورة حمايو سيدت كأنه وقع عرران ما لا فهم نبكى أقوين مركب جذوه ذو كهستا عيارته ماشي كوة جهنتها وحوي يوروبيان كإسلامية يا أمريكان كإسلامية الدين تسوق اللي يسيل لوجا تشوشيا تسوق اللي تانك الدين عبسي دا سوامت مركز واحد لقى شيء وحن كجهر تجي كرنا إن أنا عينه إن أنا أفلق دينه إن الصورة مكبد إنه تدك سيدا كعرها لكن ما الصورة وذي واي يا ما الصورة وذي ما يا صح ودعي كرتا وحوجا إن يراها كيان ويدعي كرتا ضد وحوجا سود وإن يرفق هذان ويدعي كرتا لحد ما إن الإيمان لكن دين إلهي وطه يا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم إن إله النور كيسا
fidaha iyo faafaya damiyaan bay rabaan wayaba Allahu illa an yutimma nuurahu ilaahayna waa diiday illa inuu nuurkiisa dhameystira mooye gaaladu haba ka hatee iyagoo kahanayo dagaalamayo rafanaya buu ilaahay dhameystiraya tabaaraka wa taala taa horta waa qodobo rafashadan iyo caydan iyo aflagaadadan iyo cantar baqashkan waxa ka keenaya cabsi ay diintii ka baqayaan diintii islaamka ka baqayaan waxa qariib oo la yaabay markaan dad Yurub tagay oo soo arkay markaad akhrido dadka soo islaamay ilaahay amarkii waxa u badan oo soo islaamay waa dumarka meesha u badan ee diinta islaamka ka dacaayadeeyna waa dhanka dumarka Soomaa diinta islaamku dumarkii bay ku seexatay xuquuqda dumarka ma siiso afar bay rag u fasaxday yaani wax iyaga wax furahay meherku muxuu ahay dhaxalkii baa lagu yareeyay war dumarow diinta islaamka waad ku dulmantii soo laguma akhriin haddana dadka ugu badan soo islaamay waa dumarkii ladu sidii ma hatta dumar jaahilaadu kuwa aan waxba aqoonin ma dumarkii professorada ah jaamiciyaadka baa soo islaamay diinta islaamka soo galay waa ajiib Soomaa waa qariib Soomaa wax la yaab meeshii iyagu ay tarkiisin hayeen baa u badan oo diinta soo galay ee dacaydoodu u badnayd ee ugu tala galeen diinta ka fogeeyeen qodobka labaad waxa weeye ama sababta labaad ee keenaysa xadgudubka noocan ee socda muslimiinta iyo dacfigooda waa sabab ra'iisi ah tabardarrada muslimiinta haysata oo ay keentay inay diintoodii ka fogaadeen mastarkii xooggoodii awoodooda inay ka durkeen kadibna inay sunna ilaahay ku dhacdo daciifeen dacfigaasi wuxuu keenay inay muqaddasaadkooda lagu dhiirado sabab waa وإلا markay muslimiintu xoog lahaayeen waa awood lahaayeen gaaladu meel kasto ay joogan waa ka baqi jireen inay muqaddasaadka diinta islaamka meel kaga dhacaan bal gabadh muslimada xataa inay dib u geystaan waa ka baqi jireen marka dacfiga muslimiinta iyo marxalada ay hadda marayaan waa sabab asbaabta kamid asbaabta waxa kamid ah ta'thir al-lubi al-yahudi waxa jira lubi yahudiya oo reer galbeedka sinaacatul qaraarkooda inta badan saameyn ku leh mareykanka faransiiska yurub oo dhan isku dar lubi yahuudiga waxa jira iclaamkana gacanta ku haya dhaqaalahana gacanta ku haya saameynna ku leh madaxdoodii iyo dawladahooduna inay raali geliyaan ay tahay lubiga yahuudiga ah in badan qayb muhiim uu ka yahay sawiradan diinta meel yaani aflagaadadan iyo sawiradan diinta islaamka lagu caayo rasuulkeeda iyo diinta qayb muhiim ay lubigu ka yihiin lubiga yahuudiga bal sida xaqiiqada waxay tahay suuradii ugu horeysay karkateerkii ugu horeeyay ee laga sameeyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ali lagu caayayo waxa samaysay waxa laga sameeyay meesha la yiraahdo دربيغا مسجد إبراهيم الخليل وكو يالا مدينة الخليل لأول مرة صور حنو صوره هل كاسي كو سمية كدبنا وحا سوقاتي أو بلاوي جرائدك إيا مجلاتك الرئي قلبيتك فيلما إني كسمية صورك ركتيرا كسمية أيها مركات بالله تي دنمارك هولان فيلم كي محوها هاي مريكنكا يعني وحوي جريدة ومركي محوها لباد مستصدحات وهكذا فذو مركب وحوي تأثير أن عادي هين يصامين تاسنا أيضا ومد ماشي كوتشرت وتشدينا لهذه شد إليهن اللوبي يهودي كوفافسن يوروب يا مريكنكا أنت بدنا وحيالها تحريكين يا نقاشين يا يقولون وتشدي كليه تشدون يقولوا وحكم ده شعوب الرجال بيت كإن إسلام كله هرجيه ayaga iyo muslimiintana fitna la dhaxdhigo laana ayagu markay muslimiinta iyo shucuubta reer galbeedku isku fakadaan ayagu banooniga banaanka ka daawanaya ujeedadoodana waa gaadhayaan in horta dadkan la isku imtixaano qoorta la isu geliyo mujtamacaadka reer galbeedka iyo muslimiinta ayaguna banaanka ka istaagaan oo banaanka ka daawadaan danahoodana ka fushadaan waa qodobka labaad waxa weeye yurub waxa aad ugu soo kordhaya waayahan dambe shucuubtooduna ay garawsanayaan
ظلمك يحدقدك إسرائيل أي كوض فلسطين أي كوض تصرفاتك وحشك يحدقدك قروسك هذا أي وحي كسو كرنسا شعوب الرجال بيت حتى كهر تقريبا 100% لنعب الله لكن هذا مركز وسيوح سوبة دليان في رسو دربوا حاب اللوضي شعوبتي إنه كود قديان مضح ضودي وروح الماشي كسعد والظلمي وحلو ذو القادن كرم معها وحلو أتكيسن كرم معها إلى هي روحي قاري سا برلمان فربضنا هذا رأي يوروبا إن هذا المحوها هاي وإن اعترافه محوها هاي دولة فلسطين اللي اعترافه دولتها قار خذين يكون رواقان بين اعترافان حقيقة إيماني زي ما تقنا يا والتأثير سامين شعبك كإيماني سوا ترى واحد شيء إن قضايات فربضن سو فهميان شعوب الرأي يوروب إنه سو فهميان ووحبدا اسبدليه waxay ka xuyeen marka luubiga yahuudiga wuxuu ka hor tagsan yahay fahamka shucuubtaasi ay fahmayso xaqiiqada jirta in indhaha laga jeediyo indhahan soo jeesaday iyo shucuubtan soo jeesaday in indhahooda marka la jeediyo kiisas kaliya barnaamij kale lagu mashquuliyo Israa'iil iyo waxay ku sameeynaysana laga jeediyo la yiraahdo maxaad Israa'iil ka hadlaysaa khatar ka weyn baaba idin haysatay Paris baa la weeraray oo muxuu ahay New York baa la weeraray oo London baa la weeraray war cadow weyn hal cadow baynu leenahay ya halka cadow muxuu islaam baa cadow inoo wada ah halka aan ku jeesan laakiin waxoogagan anagu aan sameeynayno intan indhaha ka jeediy khayr Allah idin siiya xaq u jeesan iyadana waa u jeedo golay doonay in xaqiijiyaan inay indhaha xagga u jeediyaan siraacuna noqdo shucuubta reer galbeedka iyo muslimiinta iyaguna barnaamijkoodii laga jeesado ayadana waa qodob kale leeyahay kadalika waxa la mid ah jaaliyadka muslimiinta ee Yurub ku nool oo tiradoodu aad u badan tahay tiradooduna kordhayso ayadana inay cadaadis la saaro oo ujeedada iyagana ay leeyihiin luubiga yahuudiga oo uu doonayo inuu ka dhaxelo arrimaha noocan oo kale ayaa wixii ka dhalanaya tasarrufaadka ka dhalanaya صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد رفيع القدر يا نجم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى الله من أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآبائي الشداد وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي وكل بنية لي قد سباني وابن حبهم دون اجتهادي فداء دون عرضك يا خليلي يموت الكل في نحر الأعادي ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقون البلاء بكل وادي فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلاد تجرأتم ورب البيت أدرى وحكمة ربنا عين السداد تمهل أيها الغربي وانظر فدون رسولنا خرط القتاد
أتسخر بالرسول وتزدريه فما تدري وهل يدري المعادي أتهجوه وترجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعاد تركت العالمين بغير ضد وجئت لخير مبعوث تعادي لتؤذيه فلا والله خبتم وهل ضر النجوم أذى القراد وهل ضر الكواكب في علاها قبيح الصوت أو قبح المنادي أيا إخوان ديني فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد فلا والله لا عفو ولكن مقاطعة وصد اقتصادي أندفع مالنا لمن استهانوا بسيدنا بألسنة حداد أيشتم سيدي وأقول هاكم فلا والله حتى بالرماد فلا قرت عيون إن عفونا ولا سلمت عيون من سهاد